nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu leeyahay 6 arrimood naftiina ii damaana qaada ama iiga damaana qaada jannadana idin damaana qaadaya yani 6 arrimood ruuxa xaqiijiya jannadu waa garantii damaana weey inuu jannada galayo wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam 6 arrimood mideeda koobaad markaad sheekaynaysaan run sheega qodobka labaadna haddaad ballan gashaan ballanta ilaaliya qodobka saddexaadna ammaanada guta qodobka afraadna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xubinkiina taranka ilaaliya qodobka shanaadna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam indhaha xaaraanta ka laaba qodobka lixaadna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam gacmihiina celiya oo wixii ilaahay xarimay ka celiya 6 qodob ruuxii xaqiijiya nabi maxamed wuxuu leeyahay jannada ana u damaana qaaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xaqiijintoodii baa marka waxay tahay marbatul faras meeshana muhiim ah waxa la ballan qaaday waa waxaan wada raadinaynay waa jannada rabbi tabaaraka wa taala waa wixii cid walba ay ku taamaysay cid walbana ay higsanayso inay gaadho ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa iyo naxariistiisa tani marka asbaabta lagu helo qaar ka mid ah qodobka koobaad oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam markaad hadlaysaan run sheega xadiis kale oo Abdullah ibn Mas'ud laga warinayo Bukhari iyo Muslim ay soo saareen ayaa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam runtu ruuxa wanaagay ku hanuunisaa radaad run low tahay runtu waxay ku jiidaysaa wanaag iyo birri iyo wax wanaagsan waxa wanaagsanna wuxuu ku jiidayaa Allah jannadiisa ruuxu inuu run sheegayo runtana ku dadaalayo ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kii runta badnaa siddiiq saastaradeed runtu waa waxyaalaha jannada waajibiyay ka mid qodobka labaad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa weeye ballan haddaad qaado ballanta oofi heshiis haddaad gashay heshiiska ilaali yaboo haddaad samayso dadka yaboo ha u fuli ha ka bixin maxaa yeelay diinteenna islaamka waxyaalaha ay kaga gedisan tahay mabaadi' fara badan oo kale waxaa ka mid ah cahdigu iyo ballanta la galayaay iyo ballanta aad qaadaysaay waa miisaaq waa wax ilaahay agtiisa aad uga culus waa inaad marka ilaaliso ballanta ama la gal muslim la gal ama gaal la gal waa inaad ballanta ilaaliso rabbigeen tabaaraka wa tacaala mu'miniintu sida ku sifeeyay jannada iska leh aayado fara badan oo quraanka ka mid والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أمانتهم وإلاليان بل أنت أي قلان نواء دوران وإلاليان بربي تبارك وتعالى قولك السدح هذا النبي الشيخ صلوات ربي وسلام عليه وحوي أمانة إلالي أمانة إلالية أمانة وحا أقوى انتي الله كوى آمين سدي حق الربي كوى آميني با كوكا أمانة خلقك أيها قيبك ama xoolo lagu aaminay ha noqdeen lagu dhiibtay ama sir lagu aaminay ha noqoto ama mas'uuliyad lagu aaminay xil lagu aaminay ha noqoto ama cilmi lagu aaminay ha noqoto amaanada lagu dhiibtay ilaali oo amaanada khayaamin rabbigeena tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha allah wuxuu idin amraya
ammaanooyinka inaad u gudataan ciddii iska lahayd, xoolaha ciddii iska lahayd gaadhsii, xilka ciddii iska lahayd u ilaali, sirta ciddii iska lahayd u xifdi, ammaanada ciddii iska lahayd gaadhsii, cidda ku khayaantayna ha khayaamin, lianna diintani waa diinu lamaana ee diinu lkhayaama maaha. allah tabaaraka wa tacaala ammaanadaasi culayskaa leh waa ammaanada samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka waaweyni ka cudur daarteen, innaguna aan xambaarsannay wey, oon tunka u ridannay. xisaabta badanna meeshay ka imaan doontaa aakhira halkaas wey. qodobka afraad ee nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weye jannaad ku helaysaan xubinkiinna taranka ilaaliya, xubinkiinna taranka ilaaliya oo zinada ka ilaaliya, oo faaxishada ka ilaaliya, oo xadgudubka ka ilaaliya, oo dhowrsoonnida iyo nikaaxa xalaasha ah shahwadiinna ku guto ku ilaaliya. qur-aanka kariimka meelo badan baa rabbi tabaaraka wa tacaala isagana macnaha ku tilmaamay oo inugu amray rabbi tabaaraka wa tacaala inaan xubinkaa ilaalinno. sifaadka ahluliimaanka jannada iskalena rabbi waa ku sheegay tabaaraka wa tacaala. rabbi wuxuu yidhi dadka sifada jannada dhaxlaya marka la tilmaamayay furuujtooda iyo xubnahooda tarankay ilaaliyaan ilaa xaasaskooda iyo addoommadooda mooye, ama addoommadooda mooye. yacni addoommadu wakhtigaasay jireen, hadda ma jiraan. meelaha qaarkood laga yaaba in laga meel ilaahay kuu xalaaleeyo ama xaas ama addoon ah cid aan ahayn ama meel aan ahayn haddaad shahwadaada ku gudato, faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum ulcaaduun, xadgudub baad samaysa. wabittaali dhaxalkii jannada inaad ka qadaa dhici karta. lan allah tabaaraka wa tacaala markuu sidaa u sifeeyey wuxuu ku tilmaamay aladiina yariuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun. aayadda kalena marka la sifeeyo tilmaamahooda la sheegay ulaa'ika fii jannaatin mukramuun baa la yidhi. sifaadkan dadka iska leh waa dadka dhaxalka jannada iska leh oo ilaahay jannadiisa tabaaraka wa tacala dhaxlaya. sidaas daraaddeed inaad xubinkaaga taranka ilaaliso. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalihii uu baycada kula geli jiray, heshiiskii iyo ballanta kula geli jira saxaabada waxaa ka mid ah in ay xumaanta iyo zinada iska ilaalinayaan, ka fogaanayaan. qodobka shanaad ee nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeye indhihiinna laaba oo xumaanta ka laaba. daawashada xumaanta iyo fiirinta xaaraanta indhaha ka celi. mu'miniinta raggaa markuu ilaahay la hadlayay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi nebigiisa yuu amrayaa, wuxuu leeyahay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim. mu'miniinta ragga ah waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow indhahooda ha laabeen. dumarkana sidoo kalea lagu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin. dumarka mu'minaadka ana waxaad u sheegtaa indhaha ha laabeen, xaaraanta ha ka laabeen. labadaba waxaa laga dambaysiiyey farjigana ha xifdiya. maxaa laga qaadanayaa bay dhahaan culimmadu? ishu ilaalinteedu waa xubinka ilaalintiisa way. isha ood fasaxdood faraha ka qaadana waa xubinkiioo khatar galay way. li'anna ishu waa sahanka ugu horreeya ee faaxishada sahmiya way. waxayna ishu soo sahminin ma dhaco. ishaa marka hore sahan tegi, hawshii bay soo sahamin, kadibna markay soo sahamiso xidhiirku meeshaasuu ka bilaabanaya. wadahadal baa bilaabanaya, muusood baa bilaabanaya, ballan baa ku xigaysa, xumaantii baa dhacaysa. yaa iridda furay? ishaa furtay. saas daraaddeed ruuxa ishiisa ka adag zina waa ka fogtay. qodobka ugu dambeeya nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka ku yimid ee jannada lagu heli kara waxa weeyaan kufuu aydiyakum, gacmihiinna celiya. gacmaha celiya. maxaan ka celinaa? gacmahana xaaraanta ka celiya. taamashada dumarka ajnabiga ka celiya. li'anna dumarka iyo ragga ajaanibta kala ah jidhkoodu markuu isgaadho oy istaabtaan waa zino. saasuu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalam, xadiidku fi saxiixi muslim. bal nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu inuu haweenay ajnabiya jidhkeeda taabto waxaa u dhaanta mudac inta maskaxda laga geliyo in la duleeliyo. maskaxda in mudac lagaa geliyo oo lagu duleeliyo maskaxda ayaa kuu dhaanta haweenay ajnabiya inaad jidhkeeda taabato.
gacantaada ka ilaali gacantaada waxaad ka ilaalisaa dadka mu'miniinta inaad dhib ugu geysato lianna nabigeenna wuxuu yidhi sal alayhi wasallam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslim waxaa la yidhaahdaa ruuxa gacantiisa ay ka nabadgalaan iyo carabkiisaba dadka muslimiintii gacantaada ha laga nabadgalo oo adinkaaga ha laga nabadgalo oo afkaaga ha laga nabadgalo haddaad janno rabbi doonayso tabaaraka wa tacaala khisaashaasi lixda ah ciddii xaqiijisa nabigeenna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ahluliimaanka ka mida jannaan u damaana qaadaya buu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu noogu kaalmeeyo kuwa iyo kuwo kaleetaba xaqiijintooda